magacaygu waa Dr. Maxamed Khalif Abdulle waxaan ahay arday ka qalin jebiyay Jaamacadda Jamhuriya sanadkii 2018 waxaan ka soo baxay Kulliyadda Caafimaadka gaar ahaan qaybteeda MBBS-ka muddada 6 sano ee aan jaamacadda dhiganayay jaamacaddeedu waxay nagu bixisay dadaal iyo juhdi dheeraad ah kaasoo noo sahlayay inaan wajahno xirfadayda aqooneed sidii aan u kobcin lahayn waxaa ka mid ahaa waxyaabihii naloo sameyn jiray intaan jaamacadda joognay waxay ahayd inaan jaanis farabadan aan u heli jirnay inaan helo skills ama xirfadaha gacanta laga sameeynayo laga soo bilaabo sanadkii saddexaad ilaa intaan ka dhameeynay waxaan si joogto ah u aadi jirnay isbitaalada taasoo ardayga caafimaadka ay daruuri u tahay inuu mar walba isbitaalka joogo si uu kor ugu qaado xirfadiisa aqooneed marka uu cilmigu ku qoran yahay buugga iyo marka aad gacanta ka sameynayso cilmiga waa laba waji hadda waxaan ahay dhakhtar ka shaqeeya isbitaalka waxbarashada iyo cilmi baarista ee Recep Tayyip Erdogan ama isbitaalkii hore loo dhihi jiray Digfaar waxaan ka tirsanahay qaybta internal medicine residency-ka waxaan hadda joogaa qaybta cudurrada guud waxaan ahay dhakhtar xiiseeya inuu heer ka gaaro internal medicine specialty hadhowna ku sii sameeyo subspecialty hadda targetkaygu wuxuu yahay markaan internal medicine dhameeyo inaan sii aado gastroenterology